xukuumadda Soomaaliland ee waqtigeedu dhamaaday ee xisbiga kulmiye ayaa baryahan dambe bilowday cagajugleyn warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ka jirta waxaana siyaasadda xisbiga kulmiye tahay mid warbaahinta siyaabo kala duwan u adeegsata muddadan 6 sano ee dheeraadka ee xukuumadda xisbiga kulmiye ka arrimisay talada dalka waxa albaabada loo xidhay xarumo warbaahineed oo kala duwan oo guud ahaanba Soomaaliland ka jiray waxa tacadiyo foolxun lagula kacay wariyayaal tiro badan oo dalka ka howlgala wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi waa wasiirka madaxtooyada Soomaaliland waxaana uu ka mid yahay wasiirada dhabarta waa xukuumadda xisbiga kulmiye si dhowna ula taliya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo markasta oo ay soo wajahdo xaalad ka taagan dalka dhawaan ayuu Maxamuud Xaashi Cabdi si adag u weeraray warbaahinta isagoo ku tilmaamay in dalka laga xoreeyay budcad qoryo sidata haddana laga xoreyn doono budcad qalin sidata waa sida uu hadalka u sheegay in talaabo laga qaadi doono guud ahaanba warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland حكومة لها إن ماذا سلاح سمايليا وقع العلينا هذي هو توبي وياه وحيتجدوا إلى توسيو قارن كني قولي ما لقى سوحلي قارن كني ما لقوا قولي خطر كوها أو دول بيقول قولي شو قاعد تاجنا بعضك كقاعدة حلو كقاعدة من قولي لما لقى حرية وتكلم وسنين قارن هايسا أو دونيرو برعاد بدأت كل نقطة وحرين أنت مدح بنان حر ومعها مدح بنان إذا الشيء يومها فري تيك ومعيسو siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku dhisan soo jeedka habeenkii iyo sanqaryaraynta waxay dagaal xoogan kula jirtaa warbaahinta madaxa bannaan iyadoo warbaahino kala duwan ku bixisa lacago kharash ah si loo yareeyo dhaliilaha xukuumadda kulmiye waa kan wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani oo si adag ula hadlay warbaahinta ka baxsan xayndaamka siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku wajahan xaaladda dalka حلا وحي قبيالد أما عنفي ذلك جمهورية الصوماليلاند كوضع إن لحشمين لنا قدرين تيفي يقولي هدد كوي من أيانا إن وحال لقسي دي فرشة حمله وحانو ديجي تيفي ذلك جمهورية الصوماليلاند كشقية ما أنت لقى بالعوض هشيس كي أنا وضع قلي يجرايتكي dadka sunta iyo qabyaalada xun ee foosha xun leh ee waabayda leh ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhaxwada doomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo muddo ka yar 10 cisho hayay xilka maamulka gobolka Awdal waxa uu walwal weyn ka qaaday warbaahinta maxalliga ah ee ka jira gudaha magaalada Boorama isagoo si dadban u weeraray warbaahinta iyo wariyayaasha ka howlgala guud ahaanba gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waxaan ka codsanaynaa inamada dhiibadooda qaasatan inamada Facebook iyo website-yada ku wada iyo hadda telefishin soo baxo Boorama ka socdo iminkaan aad u la yaabanahay waad moodeen halkan ku jiro waxaan leeyahay maadeerayaalo maanta halgan uma baahna qarankani aqoon buu dhahay waxa way ma sheegay dib inuu isaga imanayna waxaan leeyahay dalkan halgan uma baahna dalkan aqoontiisa la dhiso halkii aqoonta xukuumadda kulmiye waxay inta badan ku xambaxday tacadiyada warbaahinta iyo in albaabada loo xidho warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha guud ahaanba Soomaaliland qorshayaasha xukuumadda kulmiye ee ku wajahan warbaahinta gobolka Awdal ayaa qorsheynaysa in albaabada loo xidho warbaahino kala duwan oo ku yaala gudaha magaalada Boorama iyadoo oo qorsheynaysa xukuumadda xisbiga kulmiye sheegtayna in wariyayaal tiro badan oo ka howlgala magaalada Boorama xabsiga loo taxaabi doono maalmaha soo socda anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safanin xisbina waligay ma gelin xergaarana uma shaqay waxaanahay wariya xora dadkaan xula faysinahay
ولي حرامه واستحقامه أبي حرامك قرى حقود لدوتسيه حقيقة ذلك ميانا بلشوي حق دور مي شرفك مضمين ها ميانا بلشوي حق دور